بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسيغو ku saabsan sidee galbeedna loo joogaa diinna loo ilaaliyaa wax fudud maaha. ugu horeyn qof kastoo ummad qariib ku ah stranger ah aan deegaanka iyo culture iyo dhaqanka ummadaasi ka tirsanayn ma fududa wixiisa inuu haysto eeshu doonaba dunida ha ka joogo. qofka galbeedka yimina waxaynu nimi bia ama deegaan environment dhisan oo dowlad iyo system iyo nidaam leh, inagoo afraad oo qaybqaybsan oo keliya. su-aasha isweydiinta lena waxa weeyaan oo u baahan inaynu aada isu weydiino, ma waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano bise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsano? yani ma waxaynu u nimi maalan waxa qura aynu la nimi waa diinteennii iyo nafteenna iyo caruurteenna, faamiligaagii oo dhaqan iyo af iyo diin haysta. marka ma waxaynu u nimi inaynu wax bedelano oo maalan diin dhaqan af waxa intaynu bedelno aynu wax kala qaadano, mise waxaynu u nimi inaynu waxeennii wax ku darsanno oo hadafkeenu wuxuu ahaa intaadana hayso insha allahu in kalena ku kororso ku siyaadsa keebuu ahaa, waayo mid kasta waxba ka ratibmaya. sideedaba qolada sociologiga waxa ay tilmaamaan qofka bini aadamka ah huwiyadiisa identitygiisa, afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa, wuxuu aaminsan yahay iyo bulshaduu la nooliyey waxay aaminsan yihiin hadday isku mid noqdaan qofkaasi wuxuu ku noolaada bay yidhaahdaan fii sacaada wa raaxa wa itminaan ilbaal, xasilooni, deganaanshiya, rayrayn iyo badhaadho. waa markuu qofku waxa uu rumaysan yahay siduu u fakerayo. maalan markaynu waddankeeni joognay waxaynu la noolayn waddan afka aad la wadaagto, diinta aad la wadaagto, dhaqanka aad la wadaagto, wax walba aad la wadaagto. marka inaad adigu ama diinkaaga ilaashato ama ilmahaaga diintiisu ay ilaashanto, aqalil majhuud waxay dhahdaan effortka ugu yar, juhdiga, tamarta ugu yar iyo waqtiga ugu yar baad gelinaysa, maadaama bulshada wadaagtaan dhaqan iyo diin iyo afba. bulsho kastaana markay bulsho tahay ee dhisan tahay huwiyadeeda ama waxay aaminsantahay ama diinkeeda waxa ilaaliya kow wasaarad dhan oo dowladdu u samaysato, wasaaradda waxbarashada la yidhaaho. waxaa kaloo ilaaliya iclaamka waddanka, media, tv ha noqdo ama raadiyo ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama media waddankuu leeyahay, mainstreamka. waxaa kaloo ilaaliya nidaamka iyo qaanuunka iyo systemka waddanka. haddii inta aad ka soo gudubto waxaa ku qabanaya maxay? qaanuun baa ku qabanaya. marka waa ummaddu markay caynkaa u dhisantahay. haddaba marka aad timaado adigoo qof qura ah ama laba ah ama 10 qof oo kala gedisana aad u timaado bulsho sidaa u dhisan, bulsho dhaqankeedii, afkeedii, schooling systemkeedii, mediaheedii, waxbarashadeedii, qaanuunkeedii u dhisan yahay, qariib aad ku tahay, stranger yimi aad tahay, aad se rabto waxaagiina inaad ilaashato waxna ka kororhsato, waa qof iyo bulsho markaa iska hor yimi. laba shay baad dareemaysaa bay leeyiin. kow, qurba, qariib inaad tahay. ka labaadna waxay dhahdaan challenges, waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xooggan yihiin.
haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii ay isku dhanka u socoteen. marka kan waxaad u baahantahay bay leeyihiin waqtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xejin lahayd, intaa kadibna aad ziyaado soo hesho. qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaat tahay, muctaqadka iyo waxa la aaminsan inuu aada u kala gedisay iyo shubha badan, wax badanoo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan. ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat, wax badan oo shahwaati nafsigaaga kiciya, mansab doonkaaga, lacag doonkaaga, baahiya bini aadamkee kala gedisan, wax badan oo hor orda. asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah, wain tutic akthara man fi lard, dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan. qolada sociologiguna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar, koox yar baa hogaamisay bulshada weyne, xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa, dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan, theoryga xerada xoolaha. waxay dadkaba ka dhigeen inay dad xero ku jira yihiin, xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin. ilahina wuxuu le wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah. haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho, laba khiyaar oo quraynu haysanaa, mid saddexaad ma jiro. laba khiyaarun baa yaalla, laba doorasho, options aad haysaa, yani waa laba uun. inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii, xooggeedii, tamarteedii keenaysid, dheeraadkana markaaad raadsanayso, kaasi waa option. optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awal baad ka soo qaxday dee challenge buu ahaaye kaa aad waajahdo, mala kaasaa ka fududkane. waa labada, mid saddexaad ma jiro. ka saddexaad dee waa inaad dhimataa, ka saddexaad waa inaad milantaa, waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa. kaasi isagoo option maaha markaa. qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan, ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challenge keebaad u diyaartay inaad waajahdo. noloshu alxayaa kullahaana waa challenges, nolosha gebigeedu waa caqabaad. nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay, noloshu waa dadaal iyo caqabad la raba in laga tallaabo. ee keebaad diyaar u tahay? ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa, waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid, mise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato. dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay, wax la cunaa la raadinaya, dhaqaala la raadinaya, nabad baa la raad, challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo. labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan. uun maxaynu kororsanaynaa, maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo. ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay, mise inaad waxaagii wax ku bedelato? ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa, waxaad haysata diin baa ugu weyneedee diintii waa inaad xejisaa. markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna. taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa, adna caydh iyo shaqaa lagu siin, ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi. adna caydh iyo shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale. laakiin nabaddu waa maxay? nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayay haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso, wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi
عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نينكا وابريسته isagoo nabad qaba في سربي أي في قومي أو في مجتمعي أو في أهلي gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwa bariis yani bulshadii ay isku waxa min sanaayeen ninka kuwa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fi jasadi jidhaana caafimaad qaba عنده قوت يوم ما انت wuxuu afka galiyana haysta ka adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamay يعني kaasi waxa haysta alamni nafsi walamni alaqadi walamni alfikri walamni alsihi wala waxay sheegaan oo dhan ay ka waramaan ayaa ku soo ururay laakiin ninka waa barista fi ghayri sirbi groupkiisi ciidaanayn kuwa barista ee mabaadi iyo afkaar iyo aqaayid kala gedisan la iskala hor yimaado kaasi meel khatar u jooga marka su'aashu waxay tahay haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii ay haysateen inaad haysataan oo wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo waqti dheeraada Soomaaliya markaad joogtay intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad laba laabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaale tahay hadday waqti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysano waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macallimiinta masaajidka wax dhigta dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should be haddaad rabto hadaynu rabno macalinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mid idinka wax idin bara laakiin maxay u baahan tahay dee inaad invest garaysataan inaad waqti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa layidho maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadaya inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca dee teena waa caynkaa haddaad tidhaahdo maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goormaan diin bartaa diin la-aan baa ku leh wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la nimaadno inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku invest garayno iyo haddaynu juhdi iyo time ku invest garayno haddaynu lacag ku invest garaynanaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa إن شاء الله زيادتنا والرادعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.